السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي isku soo noqod wanaagsan meel kastoo dunida afeeda ka joogtaan waqti kastoo joogtaan baa idin wanaagsanaado haddii goorta kugu horeysay channelka aad soo booqanaysid subscribe ta taabasi videodan soo gelinay ku soo gaaraan dhammaantiin like iyo share ka intaba videogan igu kaalmaya inta ka bacdi wali ma aragtay qof qurbaha ka yimid oo Afrika yimid oo markaa weydiisid aad ku tiraahdid hebelow dumar ma joogo miya meeshaad ka timid oo ku oranaya dumar ma joogo halka qurbaha dumarkii waa lagu baabay halka dumar ma jiro ama gabar Afrika timid oo guurdoona wali ma aragtay oo markaad weydiiso ku tiraahdid oo raggi kaalay miye ka dhamaadeen America iyo Europe ku oranaysa rag ma joogo halka maalin ba gabar waxay tiri waxaan xusuustaa waxay tiri waxaan u socdaa Afrika xagga rabaa inaan ka soo guursado rag ma joogo halkan raggi fiicnaayo dhami xaggi jiraan markaas waxaan ku yiri heblaayoy kana halka jira ma inuu meeshuu joogo miyuu ku fiican yahay ma taa kaliya ku fiican yahay waxay tiri ha marba Afrika nimanka jira waa ka fiican yihiin nimanka halkan jooga waa ka romantic yihiin waa ka kalsooni badan yihiin waa ka maartay daryeel badan yihiin adigu wax badan bay ii tirisay waxyaabo fara badan oo kale hadda aan video ka dhigi karin bay ii sheegtay laakiin waxaan ku iri haddii kan Afrika hadda joogay alada wuu fiican yahay inta la keeno kuwa fiican ma ku jiraa waxay tiri way dhici kartaa inuu ku jiro marka waxaan ku yiri ogow laakiin kuwa halkan jooga Afrika markii hore joog jireen Afrika ka yimaadeen halkan bay yimaadeen maxaa xumeeyay iyaga xumaan baa jirta mise awoodi baa sinaatay taa inuu isla qirno awoodi baa sinaatay gabadhu way shaqaysaa wiilku waa shaqeeyaa qof walba lacagtiisa soo gasha ma taasaan oran karnaa halkaas ay ku sinaadeen mise kuwa halkan jooga dhab ahaan xun ma xuma haddaad aragtid qof magaalada uu degan yahay dhaleecaynaya oo oranaya wax fiican ba magaaladan lagu ma arko isaga wax ka qaldan yihiin ma dhici karto magaalada dhan inay xun tahay ma say kaligiisa fiican qof hadaa aragtid kule dadkaasa xun oo isagu iska fogeynaya isagoo ku dhex nool su'aasha isweydiinta waxay tahay isagu muxuu yahay isweydii marka inta badan mushkiladan idin sheegaya ama meesha dadku ay wax ka fahmeen waxna ka arkeen baa tusaya qisana waa idin raacinaya intaan u guda galin videogan raba reaction kana ka bixiyo waxa jirta marka qofku labada qof ay masaafo u dhaxayso mushkiladaha ma arkaan marka isu yimaadaan bay mushkilad arkaan dad badan baa mushkiladoodii waxay xal u noqotay waayo qof Afrika aaday oo soo guursado soo noqday buu maqlaya markaas wuxuu leeyahay alla gabar Afrika ku soo guursaday war Cabdi Dheero war ma haysid gabadhan soo guursaday hadaad maanta ogaan lahayd hay tollaahi maad Afrika aad guursatid cagaha lagu tuujinaya oo macaanta iyo baybida iyo xabiibtada iyo shaqanta ka dhowr tan waxa la meesha jannaad galaysaa baa lagu sheekeynaya kii waa baxay Afrika u tagaysana wuxuu leeyahay waan soo guursanay alina waan Afrika aado bal idinku isweydiiya qof intuu baxay qof uusan weligii la sheekaysan aqoonin halkan intuu ka baxay Afrika tagay guursaday ma lagu ogaan karaa qofkaas oo jaceylku ii haya inuu run yahay labada asbuuc saddexda asbuuc haday ugu baato bisha Afrika aan soo joogo qofka guursaday ma ku ogaan karaa kuma ogaan kartid Afrika marka qofku uu joogo qasab gabdho badan oo aan ka helin way jiraan oo kala jecelayn laakiin markaad Afrika tagtid ogow interestiga iyo in waxaan daacad yahay iyo interest jiro ma kala garan kartid marka kan inta jooga maxaa looga waayay kan xagga joogana looga helaya isweydiintu waa taa labada qofna markay isu dhow yihiin bay mushkiladahooda iyo dabeecadahooda ay isarkaan laakiin markay kala fog yihiin masaafada u dhaxaysa qarinaysa mushkiladaha iyaga dhexdooda yaala ama mushkiladii ay arki lahayn way kuma muuqanayso qofkani waxa uu yahay dhab waxa la isu bartaa marka isku sariir la seexdo laga soo kacayo laguma ogaado maalmo intaan tagay Afrika aan soo joogay oo wax ka soo qabqabsiyadana soo laabtay waxba laguma ogaan karo waxaan xusuustaa wiil aan asxaab ahayn runtii aad bay qisadiisu habeenka aan uga naxay oo habeenka macnaha nin weyn oo garle oo ilmadu ay qoysay hadaad aragtid uma malaynayo qof bini aadam oo qof weyn ah oo ooyaya hadaad aragtid beerka kugu dhacaya waxaan xusuustaa ninkan gabar buu ka soo guursaday Afrika uu tagtagi jiray inta process-ku socday oo dhan malab iyo macaan bay ahayd gabadhu markii xagga ugu tagtagay wax walba okay bay ahaayeen waxba ma qaldanayn sida loo soo dhaweynayo sida loola dhaqmayo ma malaysan karaysid markii xataa fiisaheeda inta loo diiday oo immigrationka la dooday oo lawyer qabsaday oo rafaad ka maray ayuu keenay habeenkii ugu horreysay ay Mareykan timid wuxuu yiri gabadha wajigii bedeshay xaas bay ii ahaydoo dee xaaskaygii oo la dhaqmay oo Afrika markaan ugu tagi jiray aanu
dee laba qof oo wada xaajoonaysa baanu ahayn halkan markaan nimid habeenkii ugu horreysayba ay timid dee dabcan maxaad ka filaysaa xaaskaagii ama ninkaagii oo intaasaad kala maqneedinuu kuu yimid wixii ilaahay suu kiina xalaaleeyey sax korkeeda inaan saa u taabta way diiduu yidhi maxaa dhacay maalintii wuxuu yidhi anoo yaaban habeenkii saasaan ku seexday maalintii markuu waagu ii baryey shaqaan aaday markaan shaqadii ka soo baxo galabtii guriga imid iyadii iyo boorsadeediiba meelay ka baxeen kaala sheeg maba joogtaba waxaan raadiyo markii dambe wuxuu yidhi anoo ku dhow inaan boliis waco ayaa waxaa la ii sheegay in ay tuulo kale aaday markii telefoonkeeda aan helay oon wacayna waxay igu tiri walaalow awalba markii hore maraykan baa kugu imaanayay haddeertaana faraha iga qaad isaguna muxuu sameeyey isla markiiba wuu baxay immigrationka wuu tagay wuu soo dacweeyey waxaa la yidhi maalinkii baasaboorka qaadanaysaan sugaynaa warkaani meel buu u oolaanaya waayo wuxuu yidhi maba annaa wada dhaqmiyo habeenkii ugu horreysay iga tagtay iyaguna waxay yidhahdeen maalintii baasaboorka qaadanayso ayaan halkan ku sugaynaa warkaaga riboodkaagana waa kaa qoranaynaa waana khatar waa laga yaaba maalinkaas in baasaboorka markaa loo diido marka horeba qalad baa ku timid si sax kumaad ima wadankan bas marka ninkaas waan xusuustaa qalbijabkii uu ka qaaday inta sane ee uu gabadha maaragtay uu ku bixiyo kharash oo ku bixiyo waqti oo ugu dambeyn markuu keenan in isbedesho way dhici kartaa qofka Afrika jooga inay tani macquul tahay oo dan uu kugu wato maalinku halka yimaadan isu ka bedelo bini aadamku ogow markay dan leeyihiin waan ogahay meeshan kale waxa la oran doonaa dadka isku diraysa laakiin dib ma arko comment ku soo quba qofku markuu dan leeyahay wax kasta uu ku sameeynaya laakiin maalinku dantiisa ka fushado waa ku dhamaatay marka dadka Afrika jooga kama fiicna kuwa Mareykan jooga iyo kuwa qurbaha jooga kama fiicna dad badan oo fiican baa jooga hadaa raadisid bay ku xiran tahay iyo qofka anigu waxaan aaminsanahay qurbaha jooga fursado badan maadaama uu haysto oo uu dabcan lacag haysto baasaboor haysto waxyaabahaas oo dhan uu haysto wuxuu aaminsan yahay cid allaale iyo cid daaratid iyo nooca tartid baad helaysaa waana fursad ay noloshu siisay ee jacayl dhaba inuu qofkaas uu isaga laftigiisu uu hayo ma tusayso waana la arkaa in badan bay soo noqnoqotaa tani haddaba marka videogan aan reactionka maanta ka bixinayo arrintaa aan hadda idiin sheegaya kaaga dhowdahay Abdullahi Ridwan waa ila soo xiriirtay Soma ma sha Allah in badan ku leedinayo Soma niyo maanta waqtiga la gaaray koode dadka aska badan marka leena lagu socdaa dadkii ugu horeeyay nasiibkooda noqotay marka oo soo dhaweynaya brother maxaan ka caawiyaa ma sha Allah horta ku faraxsanahay barnaamijkan in badan waa xiisinay ana ka qayb galo maanta nasiib oo yeeshtay sax marka inaga caabisana wax badan okay yaa laga caawinaya qof aad jeceshahay miyaa mis qof aad qabtid waa walaal wallahi qof jecel waay xiriir le waa Soma xiriir laakiin xiriirka kale Soma أنا waxaan jeclaa qabto waxa waay inaan guursado marka muddo badan waqti wada qaadan okay meeqa sano isla socoteen 2 sano okay Abdullahi wada joogto horta أنا waxaan joogaa Bro America Minneapolis okay Mareykanka joogtaa miyaa gartay qaraalaaska oo iska shaqeeya oo qof shaqaysta tahay marka Afrika naga soo doonto miyaa meesha wax ma joogaan meesha iyo wax ma joogaan Afrika waa inaan koro fiirina dibala marka qoftan waxa ku dakrintaa maleena de saayir soo hadlaysi qoraalada marka arkay waxa ana ka naxaybe ani good aad oo jeclahay si kale laba famino صح marka hadda way ma qaraxtay sidaan noqoto ma insha Allah inay dacad ku noqonaysa arjeena tan kale de waxyaabo ku shaqo geliyo ku aragtay ma jiro bis waska fiirnaysaa le wallahi waxyaabo shaqo geliyaan way jiraan bro أنا سعيدة ونشعلهاي برنامج مالمي هورنا واسكو فينا لكن معلومات دبا سباق حق دريمة يا محاك دريمته والله جديد راك دريمة يا بنت مركنا برنامج كان وحا دوين باي وجتيني رنتايني بنتاني شكي هاني يجرو إني دعدي إنا فيري أنا أنت جوكتا تري أيضا كين جوكتا كده okay Kenya joogta marka maadaama aad Mareykan joogto ay Kenya joogto waxyaabo dad shukaansan waa tiina inkastoo iska private time ma laga yaabaa dhaqaalaha kasto in wax ku saacidaysid mise si fiican oo saydo dhaqaaleeya hadii tahay labiskeeda hadii tahay kaarkeedii hadii tahay waxbarashada ku jirto inta waana ka caawiyo sax adiga waxa uu dhaqmaa sida xaaskiga camal okay
barnaamijka waa aragtay daacadna waa lagu noqon karaa kastoo backfire lagu dhici karaa labada diyaar u taa umaleyna laakiin waan dareemi kartaa qof marka uu jecel saaid u haayo haddii oo maanta weji xun loola soo baxo qalbigiisa sidoo noqonaya aad u dareemaysa sooma dhimala adiga khair ku barajeynayna magaceeda maxaa tiri magaceeda maxaa la ayada farxiyo alla sooma adigana magacaada oo ayada ku taqaano Abdullahi la yaqaana soo magacaada weydiinayna waxa laga rabaa inay dhahdo Abdullahi sooma okay diyaar way dhib malahan ma sha Allah numberkeeda i soo yeerinaysa qadkaan ku jiray adiga hadlinaya okay diyaar way numberkeeda i sheeg 0722 soo farxiyo allaha adiga Abdullahi waay Abdullahi laga rabaa inay sheeg sooma inta kugu oga sooma xagga jirta okay soo adiga iska aamusnaa ya hadlin dibta ilaa la hadalka dhahay okay diyaar ay dhib malahan marka halkan gabadhiba hadda wacaya Ridwaan ka bacdina wuxuu weydiin doonaa su'aalihiin وعليكم السلام ورحمة يا واي farxiya miya farxiya oksalaam ya Ridwaan ali dhaha يا Ridwaan isaaqa ali dhaha هاي barnaamij yaran sameynaya oo YouTube ma fahamt يا يوتيوب barnaamij yar oo YouTube aan sameynaya هاي barnaamijka waxa lagu ogaanayaa dadka is jecel inay daacad isku yihiin ma fahamt adiga horta xiriir ma leedahay ها ya ها okay xiriir haddaan leedahay numberkaaga qof aa isiiyo ku jecel ma fahamt oo ila joogo هذا numberkaaga qof ila jooga aa isiiyo ma fahamt ها marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adoo raalli ah inkastoo free u tahay oo adi ikhtiyaar leedahay qofka ku jecel ama adiga jecesha xiriirka la leedahay ay ila joogo qofkaasaa rabaa inaad magaciisa ii sheegtid adoo raalli ah ولا المحتري وسعلي قفاء waxaan ku dhahay ايه adiga soo xiriir ma lihid ها دماغ qof aad jecesha ugu jiraa soo ma ها soo jecelkaaga magaciisa ma noo sheegi kartaa ma maqashid واكم مغلا su-aala ku weydiiyaa ku dhahay waxaan ku dhahay jecelkaaga ila joogo magaciisa lagaa rabaa inaad noo sheegtid barnaamijka aan sameynaya wuxuu yahay dadka is jecel inay daacad isku yihiin in kala la ogaanayaa marka adiga jecelkaas oo daacad ma tid ها haya magaciisa noo sheegay jecelkaaga ila joogay عمر الله ya عمر الله cumar allah miya ها muubta ها cumar jeceshaa miya adi عمر الله يا قدي يا وقف كل جوابي haya qof ila jooga waa kan cumar waa ila hadal hello هلا ay wujiyas ma leedahay هلا عبد الله maxaa la koo isbedelka noocan ay leeyahay هلا بيب أنا أذكر أنت ما تنا ani maan laakiin barnaamijkan ka shaqeyn kan يا أدي أنا لمبر كان لكن أدي أنت مكوّزين ترى أنت ما تي maashadii taas dhimo wala hane laakiin asan isku bedelis maxaa بيب أنا ما إسبدلها أنا مش بدل وإسكدها أنت مكوّزين معنا hadda xataa dhan waa ogaa Soomaali ليش بيب أنا وإسكدها يوحنا أنا أذكر جعله وقت أجرتي شكل ما تقدر بيب hadda asan isku bedelis dawga la mar maxaa أنا ما إسبدلين ده أنا ما إسبدلين ده أنا وأخو جعله درت أنا وأخو شيء أنا جعلها إسكدها ما عاد أنا أخو ما أنا مش مكوّزين هذا بالإسرائيل نقول أنا أذكر جعلها marka soo ku fahmtaan wala waxaan ku rajaynayaa khayr badan بساسدين عبد الله أنا دينا كجعل وقتي وكبريانو waxaan شيء بعينه تموي رانكو أنا لا كجعلها soo ku dhacnaa dad u ogaanaysan
يعني هذا قجعلها عبد الله يعني هذا قجعلها سلم كوبين وخبر يعني لمبر كان زرقان كذا سودان دانا مخلص برو قدام يديك فانسي يعني لا جعلها وشيء and because أنا أنت سلم كوبين واد إسكده هاي عبد الله والله سمع قفته والله لكني وحي صبح دوار سمع سوري برو والله واكح ما هاي دنيا ولا أمولينا حتى لكن عبد الله لما أنت نواكحنا ورالكي إلهي مارة الرحمن مدونا أكسن وطاعتك وهو ناكسن الله كسيو hubaal waxyaabaha kan oo kala dhaca dadku markay kala fog yihiin waa qurux badan yihiin waxyaabo fara badan oo la arkaynin baa jira laakiin wax badan oo qarsoon baa jira oo saan oo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel fudud sahlan ka soo bixin karo waxaad ogaataa qof kasta oo khaa'in oo wax khiyaanayo khiyaanadaadu ma foga goorta la ogaan doono sida doontid ha kuula saa doontid u malay inaad wax qarin kartid hadda tan may filanaynin inuu soo wici doono maba aysan filin waayo waxaysan isu keeni karin America isagoo jooga iyo qof halkan ila jooga waana sirta Ridwan subhanallah waa ku raacsanahay sirta dad badan oo kale waa arkaa oo yiraahda ninkan dadku isku diraa dadku iska hor keena laakiin I don't believe that waxaan aaminsanahay dadka qofka xun dadka kale ee wanaagsan ha laga qabto dadka lug goynaya ha laga reebo adigu maanta qof kasto saas aaminsanow gabadhaada ma jeclaan lahayd in khaa'ina oo isdaba mariyay oo been u sheegayo nahaab ah inaad guriga u gelisid ma trabteen sidoo kale maxaad qof kale walaalkaaga ugu rajeynaysaa ama ugu rabtaaba qofku hadduu xun yahay qariban yahay ama uu khiyaano wato qalbiga hadhow bari qofka ka jebinayo haddaad og tahay siday ka sahlantahay ugu sheeg ka reeb hadda tan ayaa ka mid ah anu ma aaminsani dadka marka saan oo kale ay u kala harayaan waayo mid baa jirta hadda gabadha tan haddii xataa intuu tago guursado Mareykan keeno qisadan idin soo sheegay natiijadeedii oo kale maxay ka duwanaanaysaa bari waxba kama duwanaanayso waayo hadiiba qofku isagoo kula socdo uu qof kale xiriir la geli karo cadayn cad waxay u tahay qofkaas inuu ku jeclayn isla markiiba uu isbedeshay oo waa iska ciyaaray waa iska hadlay sida moodaysid ma ahan markan oo kale dhiiqa ku jirta dhiiqada lugaha laguma sii walwalaaqdo haday intay kugu jirto un baa lagu ekeeyaa saan oo kale hadayba waliga aad kugu dhacdo oo tusaale ahaan adigu qofkii wax sameynaya aad tahay sida gabadha tan oo kale dhiiqada la iskuma sii qaso oo sheekada sidii hore oo qofka isku ogeydeen hadda markii wax laga ogaaday dib ha u goranin ha u noqon bartaada taagnow waxaa tirada qaladka waan galay waxaan u marinaysaa in ku kala harayno adigu marka qaladka waxbaad ka baratay marka qofku markuu ka fog yahay social media aad kala sheekaysanaysid xaqiiqada runta ama ogaan kartid qof fariin ku soo qoraya 200 oo jeer ba maanta dhawadna diri karnaa I love you dana qori karnaa laguma ogaan karo qofka kuma ogaan kartid ha iska dhaadhacsiinin khiyaaliga qof ka fog ba jecla waa laga yaabaa waa macquul laakiin 100% ma dhihi kartid qofkan 100% waa huba ma oran kartid ma dhihi kartid waayo qofku wuxuu kugu wato interest ma garanaysid inta video kale dib u kulmayna dhamaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh